waxaan u baahannahay in aynu ka fakarna sidaynu dunida kale ula tartami lahayn intaas oo dhan dhallinyarada Soomaaliyeed fursadeedu waxa weeye maanta in ay doorasho aadaan oo la doorto in wax heshiis lagu wadayo bani aadamka Ilaahay oo dhan heshiis ku yihiin mar walba lana helo laakiin waxa fursad u maleynaya inay cid diidan aysan jirin in intaan iyo inta la midka ay qof waliba xaq u leeyahay degmada uu joogo inuu madax ka noqdo dadkiisana inuu cod weydiisto u malayn maayo cid taas isku diidan inay jirto u malayn maayo cid diidan inay dhalinyarada Soomaaliyeed loo ogolaado inay tartamaan si xalaal ah kee gudoomiyaha noqonaya iyo kee ku xigeen noqonaya iyo kee councilka soo galaya inay caadi ugu tartamaan cid diidaysa inay jirto ilama